horta arday fiican baabatiiba waa ii koow arday soo qorta ardayga qishka sameeyay maxaa lagu sameynaya khayr Allah ha idin siiyo jannada ay noo ballana waxa weeye markaa hadaba waa kii wasiirku ka jawaabay ardaygii qisha maxaad ku xukumi lahaydeen idinku wala iska cafiyaa daabile uu bartaayo jaamacadana waxa la taga waayahay waxa sameeynaa qishka laba qishku waa laba horta adduunyada qishu ka dhacaa oo way dhacdaa ardaygu inuu shiraahdo laakiin deeynaka keenu qish maaha keenu waa lagdin iyo xoog way keenu iyo qish maaha qishka waxa la rabaa ardayga marka lagu qabto ardayga qishka marka lagu qabto waxa la rabaa inuu isdhiiyo sabca wadaacan oo macallinkii laakiin naga mushkiladayna haysata waxa weeye oo idinka digaya qishka ciqaamta yeelanaya wuxuu noqonayaa ardayga inta qishkii lagu qabto macallinkii ku qabtay la dagaalama kaasay da ciqaamta ugu weyn ku dhacaysa waka kaas isaga lagu ciqaabaya ma ya maqlayn imtixaanaadku wuxuu noqon doonaa ama uu hor imanaya waxa weeye markaa way sugaynaa imtixaanka qolada samaysa imtixaanka saad moodaysaa maadaama imtixaanka ma sameeyo mana soxo imtixaanka qolo guddiga faraha ku haysa wuxuu yahayda laakiin waxaan ogahay inuu barakaysan yahay sanadkan waa imtixaan barakaysan waxa soo baxay oo ma idinku dara weli waxa kale soo baxay iscala waayahay waxa weeye muraayad iyo saacadii waa la iskala tagay imika qalin iyo shaad raqabadiisa iyo waxbay maraysaa oo qalin xataa lagaga shaqeynayo imtixaan uu jira laakiin mid baan idin sheegaya ardaygii waxa lagu qabtay imtixaanka waa laga kansal gareynaya completely waka nabtu waa sida kii hore waxaan moodayay qolada qarni Afriqiya inay dhowr sanaba ay ku weynala galayeen maxaa soo kordhay markaa qarni Afriqiya weynala galay jiray baygii hore galay jiray laakiin imika dhowrkii sano u dambeeyay qarni Afriqiya xafiiska imtixaanka la galayeen shahaadadana anaga siinay waana inala galayaan waa sida taa waxaan u maleynayaa buugtii la idin qaybiyay ee student advice-ka uu ku qoraa buugta uu ku qoran yahay wuxuu u badan yahay boqolkiiba 60 waxa weeye waa foofo waana idinku qoran yahay jadwalkii waliba waxaan ugu qabaa boqolkiiba 60 inuu ka badan yahay imtixaanku wuxuu u badan yahay sida dhabta foofo uu badan yahay sida dhabta wuu isku jiraa imtixaanku intaba uu ka koobnaanayaa waa waqtigiina waxa weeye multiple choice-ku tira ka timaada direct questions-kana tira ka timaada indirect questions-ka tira ka timaada waxa weeye imtixaanku wuu isku jiraa laakiin waxaan ogahay imtixaanku wuu barakaysan yahay sanadkan markaa uu aniga iga qora laka waxa ardayda dhacdo waa si fiican baan loo macaamilaa laba ardayga isagay ku xiran tahay hadduu ardaygaasi exam u diyaar garoobo oo wax ka sii ahaayeen oo yiraahdo exam baan diyaar u ahay imtixaankii dib baan u gelayaa waa laga qaadayaa ma garatay waxa kaloo jira ardayga yiraahda waxa sameeynaya kalaaska halayga bedelo iskuulka la tagayana waan u fududeynaayo ila sanad dambaan sii dhiganaya marka ardayda sideedaba dhacda hatta waxa loo ogol yahay ardayda dhiida keento kale hadduu yiraahdo imtixaankii dhiibaan keenay dhiidu waa gudub laakiin waxa laga yaabaa inuu ardaygaasi ama jaamacad dibadda ama jaamacad caafimaad iyo wax doonayay wuxuu xaq u leeyahay hadduu yiraahdo exam dambe imtixaankii dib baan u soo diyaar gareynayaa isagana waa acceptable oo waan ka yeelanaa marka waa sida hay horta waxaad moodaysaa inaan wax diiday markaan yiraahdo waxa ma ogi waxaan idin sheegay horta ID card-ki uu sameeyay yahay waxa weeye kaarkii imika way samaysan yihiin laakiin haddaad idhaa wax alla wax lagu saleeyay garan maayo ma idiniga rumaysan waxa weeye mid baan laakiin idiin sheegayaa hadda ii kaadi bal idinku waxaad iga sheegtaan
micnaha ay samaynayso haddii alphabetic lagu saleeyo micnaha ay samaynayso waa maxay waayo ilaahay waxaan ka baryaynaa sidaa doonaysaan inay ku soo baxaan horta waxa weeyaan imtixaanka ilaaladiisu waa isku wada mid kalaas meel walba oo dalkaas sidaa loo wada ilaaliyaa laakiin ma laga yaabaa Hargeysa iyada facilitiska waxa ku badan gobolada kale haysan gobolada kale wax mashquuliya ma jiro inaga laakiin smartphone-ka iyo internet-ka aad inoo mashquuliya taasaan filayaa laakiin ilaalinta idin sheegaya kalaas walba macallinka ku ilaalinayo hadduu ballanqaadka joogayo hadduu cadaadka joogayo iyo hadduu wajaana joogo macallinka kalaaska kugu jiro kalaas oo badan gala laakiin waxa dheertiyo kaliya madaxdii qaranka waa caasimadii dalka ay iyaduna madaxda qaranku way wareegaan kalaasaydi kuma soo galaan oo ma ilaaliyaan ilaalinta dalku waa isku mid askarta la geynaya waa isku mid ma jiro wax kala sooc oo kala nooc anagu toos baan u qornaa kalaas waliba waxa uu baahayo ilaaliyaa lana weydiiyay minka ee la yiri wasiirku wuxuu yaabado wasaaraddu waxay tiri diiba la keenay waxba kama jiraan qof waliba wuxuu shaqaysto ayuu helayaa wax diin la yiraahdaana ma jiraan dhammaantiina ina heshaan baan idin rajaynaynaa guulaysataan darajada ugu sareysa gaadhaan ee star keentaan laakiin wax la yiri diiba la keenaya iyo wax kale la keenaya iyo waa la dhacayaa midina ma jirto warkaas waa war ku tiri kunteena waa war la idinku kicinayo waxba kama jiraan sidaa wala socdaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وما هزنتي نادي وما هزنتي والسلام عليكم